kulanti wacan daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad waxa halkan idinkugu soo gudbin doona madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo qarka u saaran in xilka laga tuuro xilli magaalada Hargeysa ay ka dhacayaan dibadbax joogto ah maantana xarunta CID-da horteeda waxa dibadbax ku dhigay haweenka ka soo jeeda Isweer Habar Odol iyagoona dibadbaxoodu waxa mid carawatay isla markaana ay ku hanjabayeen in Cabdiraxmaan Ciro ay xilka ay ka tuuri doonaan xogii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona banaanbaxaas waxa uu salka u ku hayay iyo haweenkan xilli ay ku beegan tahay maalin Ramadaan ah wixii banaanka isku keenay isla markaana ay u qeylinayeen hadii ay taa markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigan baleelkana furso ku soo gaaray muuqaalada xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo sar si uu gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno banaanbax looga soo horjeedo xariga Gooshi Cisaaq ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa iyadoona dibadbaxa uu si gaar ah uu kaga dhacay afaafka hore ee xarunta CID-da iyadoona maanta magaalada Hargeysa ay ka dhacayeen dibadbax gilgilay haweenka kuwaas oo si cad ugu soo horjeestay xariga iyo cadaadiska lagu hayo xubno ka tirsan beeshooda sida ay sheegeen isla markaana ay ku qeylinayeen markii ay dibadbax ay dhigayeen xarigan ayaa haweenkan dhigeen waxay maanta dibadbaxooda ay ugu soo horjeedeen xarig magaalada Hargeysa loogu geystay Gooshi Cisaaq iyadoona horey odayaashii waxgaradka ku nool magaalada Hargeysa ay baaqiyo kala duwan ay ugu soo saareen isla markaana ay ku tilmaameen in xarigaas uu yahay mid xadgudub ah isla markaana Cabdiraxmaan Ciro loogu baaqay inuu wixii dawladda isaga ka horeysay laga ogolaan waayay in isagana markaan aan laga ogolaan doonin haweenkan mudaharaadka dhiga ayaa sheegay in si adag ay ugu soo horjeedaan talaabooyinka lagu eedeeyay in lagu beegsanayo iyagoona ku baaqay in la joojiyo hanjadabaadaha iyo sidoo kale xariga ay sheegeen in si gaar ah loogu beegsanayo waxay sidoo kale ay ku dhawaaqayeen inaysan diyaar u ahayn inay ka shaqeeyaan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Ciro iyagoona ku eedeeyay in uu tan iyo markii la doortay uu halkaas uu ka bilaabay qalalaaso iyadoona markaan uu qarka u saaran yahay in Cabdiraxmaan Ciro xilka laga tuuro maadaama khilaafaadka ee magaalada Hargeysa ay si isdaba joog ah u soo noqdeen isla markaana fariimo kala duwan loo dirayo hal mar waxaan isla daawanaynaa haweenkan dhiga dibadbax iyo sidoo kale fariinta ay u direen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro maanta ubax xeerka xidhateere xidhi waay muxuu yahay su'aashaas calama su'aal war nisaa joogta nisaa timi ina cali daarood bay agtaagtay baad ku haysataa way dhaaftay xar bay u tahay ina cali daaroodna waa mashaahidka yagii waa madaxweynaha yagii gabadh gurigeedii joogta hadday hadashay waaran baa kaadka aad ugu daadatee argagixisooyinka maxaad u qaban weyday dalkan dadka jooga maxaad u qaban weyday teeraale maanta maxamed cali daarood baa ku xiga waar biriish baa saarantiina biriishka xadhigaan u jarayna mar haddaad fadhii weydeen maalintu muuse ka dhagay waa kii ku yidhi war waxaad xanaftii ka dhacday doorashada dhamay buu ku yidhi si xarigale kuugu dhiibay weeweynin Isweer Awal ee xaafadda idaacadda istaaga Jabuuti Xawaadle ayaa hadlaya waxaanu ka hadlaynaa inantayada Goosha Cisaaq ma waa Goosha Habar Awal weeyaan waxaanu u sheegaynaa khadar dukurka xun hadalka jilicsan leh iyo dawladda wada dukureena dumarka Isweer Awal ku waalatay iyagoo sariiraha jiifo kala soo baxaysa waxaad karateen maaha annagoo dumar ah ka soo deynayna khadar dukurow halka joogtana waanu kuugu soo dhacaynaa guriga cali daaroodna wiimanaysid cidambana xidhimayside way noo bilaabantay saasa loo wadayaa wada baan leh waxaanu ka hadlaynaa xariga la xidhay mujaahidada Goosha ubax waxa weeyaan dawladdan Ciro waxay wadataa astaan gaar ah ay ku ugaarsanayso magaca Isweer Awal ay ku ugaarsanayso waxgaradkooda dhalinyaradooda uqaashooda ayay ku ugaarsanaysaa ma aha dawlad qaran ma aha waa dawlad ugaarsanaysa magaca Isweer Awal alla balaadiyay super power baan alla balaadiyay super power baan leenahay waanu ka dagaalamayna waanu ka hadlaynaa guryaha la isku soo galaya dhammaan waxaan u sheegaynaa dawladdan Ciro waxaan u sheegaynaa hadii 24 saac gudahood lagu soo doon waayo inaynu sameeyno mudaharaad ballaaran oo salmiya dawladdan kursigii baan ku saarnay mucaarad ma diyaaraan marka waxaad samaysay inaad ugaarsato shacabkayaga iyo mujaahidiintayada waxay caruurtii ma adduunka kamay dhicin gurya
وارن بالله صوت شرعي وارن شرعي قال الله مرة دمر هردا guryahoodii joogta loogu doorta lagu sasiyay sida gagaxisadii ayaa loo dalbaday afar gaaro hubaysan qadkii cagaarnaa baa dhici ee xamar ka dhacay qadkii cagaarnaa ee isku gudbay wallahi noqonaysa way si degdeg loo soo daafro tasca gudow way loo soo daayay way la soo daayay tamaan magaca suweer waxaan u sheegayaa bakayla jooga ciidankeeni qaranka ku dulniikinayay waxa jooga ateera jooga ee ku dulniikinay ciidankeeni qaranka aha ee ku dul istaagayay war dawladii buurta haddana dadku soo daadanayso muxaafadaad mucaarad ba yeelan weyday waad faxriin kana anaga ka kicinaynaa ballantaasi weeyaan harunka marka la qaso uu faxaad waa faxday marka guriga ku soo socdo waxaan leenahay eedaysana waa lagu arkaa waa lagu abaalmariyo waxa weeyaan ninka madaxweynaha jooga khadar hadduu wadanka u taliyo dalka hadduu taliyana waa la arki haddii dawlad qaran noqontana waa la arki doonaa waxa weeyaan waa in qarankayga waanu ilaalinay saddexda dhadhaar waa suweer bal weeyaan dawladda waa laga dhisay dadkayga iyo shacabkayga noo daaban ku leenahay isku soo gudbi maayo haddii la isu gaarsado dhalinyarada iyo wax garadkaysa maalintu muuse ka dhagay waa kii ku yidhi war waxaad xanaftii ka dhacday doorashada dhamay buu ku yidhi si xaragalin kuugu dhiibay waxa weeyaan dawladda ciro waxaan u sheegaynaa teera waadiga u ururiyay masaakiintii cashuurta laga qaaday waadiga ku casumay maanta ubax xeerka xidhay teera xidhi waaye muxuu yahay su'aashaas xalama su'aal war nisaa joogta nisaa timi madaxtooyadu way buuxday waan wada ognahay kabaradaha wada dansan waxa weeyaan mucaarad maad yeelan waxaanu ku leenahay ciro kaliibkeega maqal baan ku leeyahay haddaad joogi weydo daandaansiga subeer awal haddaad joogi weydo wallaahi inay dilaaci doontaa oo khadkii cagaarna soo noqon doono la isku gudbo gabadh gurigeedii joogta hadday hadashay waaran baa kaadka aad ugu daadatee argagixisooyinka maxaad u qaban weyday dalkan dadka jooga maxaad u qaban weyday waxa weeyaan annagu suweer awal baanu maaliyadii baanu haynaa ilaah baa dhul barwaaqana dul dhigay oo facareeg ilaah baa dhul barwaaqana dhigay ma fahantay daandaansigiisa adaa joojin waayey ilaa guryaha loogu soo daadanay argaysa anaa kaa hurdaa laguma haystay baan taagan marka waxa weeye maanta waxaan taaganay 90 baa dib inoogu celisay habartii kale saaran sida la taagay maanta inta dadka dhex u noqon lahayd dawladdu ma diirto muuse wadinkii caayay iska aamusnaa dawladii hore waa iska aamusnay maanta waxa weeye waxaad ka caban jirtay adigu dadkii baa la xidhayaa caynka nutritionkaad warqada u qorteen xusbiga wadani ayaad qorteen bergii laascaanood idinkaa furaha bixiyey laascaanood idinkaa furaha bixiyey waa la og yahay intiiba intaan linaga saamaxay dee maanta ma inaad ugu taraaraxdaane dalka iyo qarankan waxa la dhisi doona guddi sare la dhisi doona waddanka badbaadiya guddi sare ayaanu dhisan doonaa oo dadka badbaadiya qaranka badbaadiya rabadaan kariim baan leeyahay rabadaantaa cira naga ajarsaday hadla maanu lahayn iyagaa bilaabay rabadaantaa iyagaa dadkii gumaadaya waxaan u sheegaynaa dawladdan jabhadda guurta gacan libaax inay degdeg u soo dayso ubax cabdi hadday soo dayn weydo waxaanu leenahay ma daynayno siidhigaagiina waanu sidanaa joojina mayno kawdha siidhigaagiina waanu sidanaa joojina mayno waxa weeyaan xadhigga qaban waayay tayro xadhigga qaban waayay bakayle oo buurta gacan libaax iskaga taagayay oo faysal cabdi bootaan si u laalaadinayay ninkii kuwanta dilayay ee isku agsawirayeen xeerka qaban waayay tayro daantaa jooga oo ciro hoos jooga muxuu ubax u qabtay ubax maxay samaysay ubax maxay dhintay haddaad u soo dayn weyda degdeg هذا خضر دكر يا ماما مليون بلوش يا خضر دكر يا ماما مليون مليون وحنو شاقة يا خضر دكر حدو دقدق وصول دايوالو مدحتو يلا أنا سوبر أول عليه أنا كوكو إلى عشان يا يبات كما ورد شري حداس خضر دكر ماما مليون وصول دايوالو واحد كو هيستا أوبح وانو برانينا إنا عالي دارات بيس أكتاك تيبات كو هيستا ويناف نافطي حرب وتاينا عالي داراتنا ومشاهد كيجي ومدحوينها يجي وقاسي يجي ومطاقرينا waxa weeyaan hadda subar nimanka abtirtay waanu ognahay shaqadaadoo dhan ina 25 nin oo garxaati soo habar yoonisa oo kuwa hilibka qalayaya
إن أدو درتاي أدو قاعدة شن يلا ما تكدينا نمك هوري هوريسا وأنا أقنها يا تري وحصابرتان إلى سوبر أول أسكا جاي ستو إن قال هنقال وأنا أقني سوبر أول أسكا جاي ستو حدا صوت دايم ويدو أمس حدا صوت دايم ويدو أد حرية دي تقدر وقصوا علي ويدو والله يا إن أنا توكسنا رمضان وناكسن رمضان تاني إلهي دنبجنا هدافو كومد النبي محمد أردن هدافو نين كان سوك يين إلهي دنبجا صردن سجها كلا حساب تمو إن كان ما يمليون خدر دكور أو بحواد السلام وإلى أمر رد الله عي محمد علي دارات كذا حركي وحنا كما قاضي كرو وحنا كما قاضي كرو ترى لما أنت محمد علي دارات باكوجا واربريش بس سارنتينا بريش كحرقان وشرينا مرهدات فدي ويدين بريش لي أنا حد جوجيرنا ما أنت نبغى واحد ودشة ولا بعد دمرك دولة رجل صادرة يا ماها دولة رجل سكحتنا سماها والدولة دمرك كعادك دمرك لا ديار قرب والسلام عليكم haddii aad daabatay oo muuqaalkan aan dhameysatay aragtidaadii inuu gurab waxa kaaga soo baxay qaybta faalada haddii ay tahay markii ugu horreysay